السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد ديب شيخ وسوفتوير كي جوجل أثنتيكيشن كورس عن كقاضنينه. طبعا سوفتوير كي نوعه كم دي هاي مولتي فاكتور أثنتيكيشن أبسكا أما سوفتوير هذا كهرتجا إلا شبصده أكون هذا فيسبوكا جيميلكا يوحكستا أو مركز سكيورتي وباهن. سوفتوير كان يو وكلا باكرة أفر بدن سيدا مايكروسوفت أثنتيكيتور Microsoft Authenticator أنا ما استعماله waxaan isticmaalaa Google Authenticator waxaan isleeyahay steps kala marayo si aan uga hortago Facebook-ga in la isticmaalo taa macnaheedu waxa weeye in Facebook-ga hadii la helo login-kiisa tusaale ahaan oo kale numberka lagu galayo iyo password-ka labadaba hadii la helo in uu diidayo Authenticator-ku in la isticmaalo oo uu qofka ka dalbanayo inuu galiyo code-ka ku soo dhacaya Google Authenticator. waxaan marka ugu horeysa diyaarsanaynaa application-ka ama software-ka baan la soo degaynaa waxaan tagaynaa Play Store-keena inaga oo la soo degaynaa software-ka Play Store-ka marka aan tagno waxaan ku qoraynaa search-giisa waxa la yiraahdo Google Authenticator. طبعا وكاس marka aan ku qorno waan soo dejinaynaa download baan dhahaynaa then aniga waa ii degsan yahay open baan leeyahay hadaa rabtid waa kan Authenticator marka uu saa diyaar kugu yahay waxaad tagaysaa Facebook-gaagii ana waxaan ka galayaa Chrome-ka adigu meeshaad ka galaysid adeeg jirta hadda waxaan ku dhex jiraa Facebook-gaygii si aan u soo galo Facebook-ga aan ugu xiro Authenticator-ka waxaan ku dhufanayaa Facebook-ga setting-giisa then marka aan setting-gida ku dhufto waxaan ku soo dhufanayaa password and security waxaan ku soo dhufanayaa use factor authenticator waxaan ku dhufanayaa use factor authenticator then waxaan leeyahay authentication-ku noocyo badan buu leeyahay ama application inaad isticmaalayso ama text message isticmaalayso ama security ka isticmaalayso ana waxaan isticmaalayaa baan leeyahay use authentication app wuxuu soo saarayaa code-kan iyo waxa weeye isagoo oo code ahaan iskaana iyo isagoo waxa weeye code caadi ah markaan kan diyaarsado waxa aan leeyahay waxa aan koobiyeynayaa code-kaas ayaan koobiyeynayaa then marka aan code-ka koobiyeeyo waxaan tagayaa software-kii Google Authentication-ka hadii aan galo marka aan software-ka la soo baxo aan soo furto calaamadii plus-ka ahayd baan ku dhufanayaa add account then halkan uu keenayaa halkan aan ku bixinayaa magacayga Facebook-gayga magaca profile-kayga halkan waxaan ku copy gareynayaa ku paste gareynayaa code-kan Authenticator code-kan hadii aan ku tuso meesha magaca laga soo qaadayo magaca caadi ah maaha waa magaca ku degsan Facebook-ga profile-kiisa taan dib u noqdo u laabto waana iska check gareysaa magaca si uu kugu soo qabsado magaca halkan baad ka tagaysaa profile-kaaga galaysaa Facebook-gaaga then waxaan leenahay copy link to profile baan leenahay aniga waa kan magacaygu intaas weeye dabcan iska ilaali inaad magacaas caadi ah soo qaadato hadii kale uu ka diidayaa aan ku noqdo markaa meesha aan ka imid ee setting-gida ahay password and security then use two-factor authentication app baan leeyahay then code-ka ayaan koobiyeynayaa software-kana waan la soo baxayaa kadib waan ku paste gareynayaa marka aan ku paste gareeyo finish baan leeyahay dabcan waad aragtaa Facebook-gaygii halkan soo galay marka uu saa kugu soo furo waxa aad leedahay continue
facebookaaga continue leedahay intaad ku noqoto koodhkaas confirmation koodhka ah ayaad gelinaysaa koodhka halkan soconaya ayaad gelinaysaa kadib waad aragtaa wuu tirinayaa 30 second ayuu halkii koodhba qaadanayaa oo qofku waxaa loogu talagalay secret oo qofku haddii uu damco inuu kaa koobiyeeyo ma koobiyeyn karo gacantan cabaar ku haynayaa wuu koobiyeynayaa dana waxaan tagayaa facebookii halkaasaan ku baasi garaynayaa continue baan leeyahay dabcan sidaas ayuu iigu xidhay authenticator appkii sidaasuna iigu shaqaynayaa oo hadda laga bilaabo haddii aan damco inaan facebookayga meel kale ka galo ama qof kale uu helo passwordkiisa iyo wixiisa oo dhan oo uu damco inuu galo waxaa la weydiin doonaa koodh ku soo dhici doona authenticatorka ama Google Authenticatorka sidaas halka waxaa noogu eg sida loo isticmaalo Google Authenticator sidoo kale waxaa la mid ah Microsoft Authenticator waana laba software oo labaduba aad muhiim kugu ah xilliga security-ga